السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقاليد من كستاجيبتكس ولا جنال كاني حرمت أنت عافماتك لاشين شكري آدم بول إسكر هالنقطة هذا الكبير اللي يدون طيان تلاقيها حياة إسكر هركبي سنة لكن الحمد لله رب العالمين وحين رجينا عافمات برواقة من كسبتم كجوبتين سودة وهذا عندها ما توحى حياة توبك دومكن أنت توب وسيجود قليل حرمنا كهالله هرتا مال حرمتا يعني سميه ما شاء الله تبارك الله وحكست لغا هلايو دي فيتامينياشا كا دعسيهين لغا بارايو فيتامين كا دعسنا اوغانيسي ميسانك عربتها ilmaha calool ilmaha oo dad badan ay la soo xiriiriyay ilmaha yaryar kiiladooda aad u hooseyso oo lagu kubcinayo dadka zaid u buuran hilibka looga ridayo dadka caateysan dadka dhiigga qaba kulli cholesterolka kuwa oo qabaan sokorta kulli wax kasta programkii waa la isku soo daba xiray iniga leeyahay weyn asxaabta qaaliga hadda ma taxaw si guud galina topigeena xawaaye vitaminkan waaye vitaminyaashan aadaan oo joogtidin inaan markasta ka hadlo asxaabta qaaliga vitaminkan waxa la dhahaa pregnancy care plus omega 3 wuxuu yahay maxaa laga faa'iidaa waxa lagu talagalay hooyada uurka leh iyo gabadha raadinaysa uurka soo marka laba qof ayaa faa'iidooyin halkan ka helayna daa qaadatid waaye waxa ku dhex jira inta tusaaya asxaabta qaaliga inta uu si galin isugu eegyahay laba nooc ayuu kala yahay saadahna mid saan u eegyahay mid kalena ay tusaaya kan saan u eegyahay kan waxa waaye omega 3 plus kan dhaxay waaye kanna vitaminyaasha oo dhan horta ka kooban yahay inta vitamin ka kooban yahay tusaaya asxaabta qaaliga suuqan joogaa iska raal noqdo daqiiqay waxaas maqashina waxaan joogaa meesha xarunteena joogaa soo vitamin D vitamin E vitamin K vitamin C vitamin B oo dhan ku jiro B1 B2 B3 B6 B12 folic acid kulli magnesium iron zinc copper selenium iodine kulli da vitaminyaasha qofka bini'aadanka laga rabo jirkiisa waaye horta vitaminyaasha xashur uga hadasha waxa laha ogeena vitaminyaasha ma jirkiin aan ka siinin sida qodadkan ku xir weynaadaan inoo la faxano aanto dhan isbitaalka dawareeganayaan cunto fiican ma cunno oo qaanas ah soo marka vitaminyaasha iska qaata marka qofka gaaraba 25 mise 20 ku kor u dhaaf waxa lagu talgalay inuu vitaminyaasha iska qaato soo marka si uu eegay asxaabta inta uu si guudi galay inuu guudi galay aan sharaxno waay kanana iska leh hadda inta ka helisaan leeyahay helaysa wax kasta ana haay vitaminyaasha dhan kan omega 3 waaye كاين شيء واي اوميجا 3 wuxuu fiican yahay oo shaafi doona yaa la raba inay qaataan vitaminyaasha la dhaxlay hooyada uurka raadinayso iyo gabadha iyo hooyada uurka leh hadaan qaato maxaan ka helayaa waay waxa ka helaysaa la dhahay horta wuxuu leeyahay omega 3 saa hore u sii omega 3 wuxuu u fiican yahay indhaha iyo maskaxda daalka badan oo maanta dhan daalka waxa ku haayana iyo maqaarka bini'aadanka uu ka dhinaaya waxyaalaha kale asxaabta qaaliga u fiican xawaay maxaa la dhahaa omega 3 maxaa la dhahaa waa vitamin aad u wanaagsan qof kasta qaadan kara kan kaligiisa duuyahay waaye laakiin labadan way isla shaqeeyaan markay aragtidina uur leedahay aad ugu wanaagsan yihiin hadaa uur raadinaysidna zaaido labada waxa waaye oo dadka loo soo qoro waaye dadka gabdhaha uurka raadinayo maxadaan qaato marka uurka leeyahay hooyadan ka hadlayna wuxuu ii faa'iideynaya ilmahaaga wuxuu korinayaa indhaha ayuu u fiican yahay maskaxda ayuu u fiican yahay inuu caloosha ku jiro iyo hooyadaba wuxuu kale u fiican yahay dhahnay caafimaad guud ahaan oo dhan wuxuu kale u wanaagsan yahay ayaa dhahay markii hooyada labalabada waxyaalaha badan ee dareemayso uurka leh hadaa uur leheena labadan waxa la isku daray vitaminyaasha kana maxaa lahaa gabadha uurka raadinayso iyo kan kale kan guud ahaan waa vitaminyaasha kan waa omega 3 waxaana guud ahaan wuxuu fiican yahay maqaarka maskaxda indhaha qofka weyn ilmahana lafta dhabarka xitaa wuu fiican yahay waxyaalo badan oo fiican soo marka waxa soo faa'iideen ayuu leeyahay faa'iidada kale laga helay waxa hooyada markay uur leedahay daalka badan murqa xanuun ilkaha dhiigayo maxaa la dhahaa wareerka caloosha markay ku taagan tahay waxaas dhan ka caawinaya soo marka waxaan ahnay waxa kale oo ku jira folic acid kulliga ka saayaan dumarka markay hooyada 3 bilood ugu horeyso waa laazim in loo soo qoro because unuga lafta marka uu koriyaa maskaxda uu koriyaa indhaha uu koriyaa iyadana badan ka joojiya daalka badan iyo xaas
waxaa kaloo ku jiro vitamin B oo dhan waxay u fiican yihiin guud ahaan caafimaadka qofka bini'aadamka ah. Tishugana u fiican tahay. Waxaa kaloo ku jiro iron oo ognahay waa vitaminka hadduu qofka ku yaryahay dhiig la'aan ku dhacayso. Iodine ku jirto. Iodine wuxuu wanaagsan tahay hormoneska la dagaallamta maadaama markii hooyo uur leedahay waxaa ku badan ayaa la dhahay thyroidka la dagaallamta hormonka ayay balance garaysaa saasay wanaagsan tahay. Waxayna support garaysaa cunuga caloosha ku jiro caafimaad guud ahaantiisa way wanaagsan. waxaa kaloo ku jira vitamin D hooyada markay uur leedahay naturally waxaan ognahay inay maxaa la dhahaa lafaha xanuuna, lugaha xanuuna, ilkaha xanuuna, waxyaalo badan ayaa kasoo baxo. waxaas oo dhan kaa caawinaysaa qof kasta inuu qaato vitamin D waa loogu talagalay because qofka maalintii waxaa la rabaa inuu qaato 10 grams. haddii 10 grams vitamin D qaadan weysid waxyaalo badan ayaa kaa dhacsan. laakiin hooyada ka hadlayna uurka leh maadaama hormoneskeeda waxyaalaheeda hoos yihiin waxyaalo badan ay ka caawinaysaa. asxaabta vitamin D aad muhiim u yahay lafaha dadku fiican yahay wadnaha, kilida, ilkaha, meelo badan ayuu fiican yahay inta murqaha, daalka. hadduu kugu yaraana waxyaalahaas dhan kiisa degdegayaan waxaa ka dareemaysaa daal badan, ilkaha ku dhiigaayo, murqaha laga hayo, jilbaha ku xanuunay, lafaha ku kaarayaan. waxyaalahaas dhan ayuu wanaagsan yahay. vitaminaasha inta ku jiro dhan kulli lama soo wada koobi karo laakiin hore ayuu soo tusay waxaana vitamin ayaa ku jira dhaxnay. vitamin D, E, K, C waxaa ogtihiin hadduu qofka oo ku yaryahay difaaciisa jirka aad u yaraanaya maanta wuxuu dareemayaa inuu daalan yahay meel laga haayo makasaayo. vitamin B soo ka hadalnay waxyaalaha dhan halkan laguma soo koobi karo waa aad muhiim yihiin. labada qof ee la rabo inay qaataan waxaa waaye iskala noqon dad ay hadlaya maqlisiin dadka waxaa waaye suuqa waxaa waaye asxaabta qaaliga waa hooyada raadinaysa uurka iyo hooyada uurka leh ayaa loogu talagalay inay qaataan. waxaasoo faa'iidooyin ay ka helayaan. marka waxaan dhihi lahaa sheegareeya dadka la sheegareeya na soo booqda insha Allah inta dad u baahan halkaas ayaan ugu sii baxaya. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi.